Caana yarida hooyada nuujinaysa. Waxaan kuu sheegi doonaa dhowr tillaabad oo kaa caawinaya inaad caano badan yeelato, sidoo kalena waxay kaa caawin doonaan inaad kala koriso ilmaha. Tallaabada koowaad, waqti u yeel naas nuujinta. Ilmaha markuu dhasho ilaa 6 bilood, labadii saacba hal mar nuuji. Celceliska nuujinta waxay noqonaysaa 8 jeer oo maalinkii ah iyo 4 jeer oo habeenkii ah. Ma ahan inaa mar kasta aad ilmaha naaska iska siiso. Weliba aad waqti yar inta saas afka ugu geliso xoogaa yar markuu nuuga aad dhigtid. Laakiinse waa inaad waqti u yeeshaa oo aad labadii saacba mar siisaa. Qodobka labaad, markaad nuujinayso, jooji ku mashquulida meelaha kale ama waxa ka dhacaya hareerahaaga. Isha ku hay ilmaha dhabta kuu saaran. Badanaa waxaa dhacda in hooyadu ayada oo nuujinaysa ay hawlo kalena gacanta ka qabato. Taasna mid sax maahan. Waa inaad ilmaha dhabta kuu saaran isha ku haysaa, dareenkaaga aad soo jeedisaa, keliyana aad ku koobtaa ilmahaas dhabta kuu saaran. Qodobka saddexaad, naaska koowaad nuuji ilaa uu caanaha ka dhamaado, kadibna u wareeji naaska kale. Naaska koowaad markii aad nuujiso ama naaska aad ku bilowday, si fiican u nuuji ilaa uu ka dhammaysto. Kadibna u wareeji markaas midka kale. Caanaha naaska intooda hore waa biyo. Intooda dambana waa caano adag oo ka kooban nafaqooyin badan. Ilmahana ka caawinaya korniimadiisa iyo kobcida maskaxda. Haddii aad sidaas u nuujiso, maskaxda waxaa loo dirayaa message ah inaad nuujin wado. Kadibna hormoonada caanaha soo saara ayaa waxay soo daynayaan caano badan. Dhanka kale ilmaha way ku kala korayaan oo maskaxda waxaa loo sheegay inaad nuujin wadid. Kadibna jirkaagu ama hormoonadaadu markaas diyaar umay noqonayaan inaad uur qaado.